Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga Zainab Cali. Fadlan ugu horeyn haddaa igu cusubtay subscribe, like iyo share iyo saar. Asxaabta kale ila joogan waxaan leeyahay mahadsanid. Maanta waxaan sameysanaynaa ceesh iyo suqaar yar. Meeshaas waxaa ku haystaa 3 koob oo bur ah. Waxaa ku shubay far iyo suul oo cusbo meel dheer. Iyo maxaa ku shubay 3 qaado caano booro ah. Caano booraha muhiim waa jileecay kaaga dhigaya kaala arag nafaqana waa hadaa haysatid iskaga darso. Meeshaas maxaa ku darsaday 2 qaado sokor ah. Ceeshkiina zaid u macaanaado mal rabo sababtoo maraqa lagu cunaa. Maxaa ku darsanaynaa fixiso mise qamiir si walba qof walba soo aqaano 1 qaado camal. Inkastoo qamiirka maxay ku xirantahay meel alla meelaa joogtid, dad qaar meel kuleel ay joogaan, dad qaarna iska qabow, soo maxay ku xirantahay meeshaa joogtid. Intaan wixii dhan qaleelka isku darnay intaan isdhex gelinaynaa. Marka isdhex gelinana waxaa ku darsanaynaa xabad ukun ma laga maarmaan waay. Ani waxaa samaysan dee burtee sabaayad anything caano booro caanaha powderka ah iyo ukunta waa iskaga darsadaa because wax dhib kuma keenaysa inay faa'iido soo kordhiso moogi. So intaas si fiican isku dhex gelinay. Waa kaas maxaa ku darsanay xabad ukun, biyo qandac aan ku qasanay, biyo qandac oo fiican aan ku qasanay. So daawasho wacan ceeshku iska jilacsan yahay ma wax oo zaid u adag qasiyo sabaayad mise chapati ceeshka shaqo fudud ah because chapati intaas process loo maraa inta dibin. So waa kaas daawasho wacan. biyaha maxaa u isticmaalaa koobkaas 1 koob lee soo shubtay but maxaa u isticmaalaa koobkaas oo 2 ah u isticmaalaa. Biyahana maxay ku xirantahay qiyaasta burkaada aad sameysanaysid because hadaa family badan tihiin wax badan aad sameysanaysiin, hadaa yartiin wax yar. So biyaha maxaa waay adiga waa tartiib inaa ugu shubtid lagaa rabaa. Hal mar mugto wixii hadaa ku shubtid way kaa biyoobay, laakiin tartiib waa qiyaas kartaa hadee kaa adkaato wax yariisa ku daree. So waa kaas burkaan xashitaan fiican u baahan yahay waa in lagu jimicsadaa. Wax markaa aad si fiican u xashtina iyo 30 daqiiqo ka yar ee kugu soo qamiiree bad xashitaanka hadaa ka helaysidna way ku dhibay adeegayna kaa noqonee burka si fiican isku dhex galay. So anything bur ku saabsan oo hagar bax si fiican u qaso. Kaas videogan boobsiisa ku furo sababta videoga way dheertee waxa zaid u dheeraadan waa lagu caajisaa. Muhiimad maxaa waay si fiican waa kaas biyaha 2 koob oo biyaha isticmaalay. Marka koob 1 koob lee ku soo diyaarsaday inta kale raaks biyo qandac fiican waaye. Biyo qabow ha iskaga qasin burka si fiican kuma noqonayo. Si fiican u soo xashanaa miiskaas waxaa u isticmaalaa burka iyo waxaas waa iska tirtiree baaquliga markaa si fiican ugu qasatid meesha dhigane ku xashe ku cajiime. Waa kaas u jeedin burka si fiican oo isku soo dhex galay kaala arag bac mise towel mise wax alla saxan afka ka saare meel iska dhigee. Intaasna suqaarkaasi dalaanayna intoo ka soo qamiiraayo. waa kaas daawasho wacan. Haddan maxaa bilaabanaynaa suqaarka kariskiis. Meeshaas maxaa ku haystaa saliid iyo basal xabad weyn. Markay si fiican iskugu shiilmate hilib ku soo darsaday. Anima iyo dadka hilibka dhaqo hilibka dhaqaa ma jecli, just chickenka iska dhaqaa but hilibka daa dhaqo dhacaankiisa iga baxaaya. So hilib iyo beer ma dhaqdaan. So hilibka iyo basasha isku shiila xoogaa yara daboola markaas isku soo laabanaynaa. waa kaas hilibka wax biyo ma ku shubin, biyahaas yar asaa dhale. Maxaa ku shubanaynaa xabad maraq digaag iyo 2 xabo cube qasab ma ahan waxaa haystid isticmaale. Cusbo hadaa rabtid isticmaale, haddii kale waxaa isticmaale maraq digaaga qudaarta
wax alla waxaa haysatid. Ani maxaa isticmaalaa xabad maraq digaag iyo 2 xabo Reiki cube. carfiska dhanna haddaa ku darsanayaa. sheekada maxaa waye 1 2 3 suqaarkan suqaar dhib badan ma aho, waa wax iska fudud oo kaala arag ah. So maraq digaag iyo Reiki cube-ka isku Reiki maxaa hilibka loogu talagalay beef waaye, beef cubes. So maxaa isticmaalaa xawaajiga isku dardarka. xawaajigaas isku dardarkan guriga ku samaystay, waxa gurigaada hubtida ku fiican. waxaan ka sameeyay xawaaji burbuur, xawaaji dhadheer, kholfo, dhagayaro iyo wixii xawaaji guriga heel yar kaala arag. caraftiis ma laga sheekeyn karo. midka dukaanka laga soo gadaa iyo midkan kana kasii caraf badan. soo wax yaraa ku waxaana ku shubanayaa kabsar iyo toon. kabsartaan maxaa midda bishii soo adeeganaya meesha ku jirta, ma iga halaabin. kaala arag caraftiisa si ugu cagaaranta waa ujeedin. soo kabsarka iyo toontana waa isku dare. halkaas maxaa ku darsanaya baradhadaada. ani kaarood badan ma ku shubin koos ilmihii kaarood ma jeclo. xabad kaarood bisaa kusoo jarjarte. haddii ilmahaada qudaarta ay jecel yihiin ayu nooc qudaar waa ugu darsan kartaa. soo intaana haddan isdhexgelinaa xoogaa biyaha waxyariis kasoo koraysiina. daboolka u dhiiba wax ka maqan malaan. hadhow markay bislaato maxaa u diyaarsanaynaa barbarooni iyo basala kor ugu darsanaynaa. suqaarta shaqadiisa intaanay noogu egtahay. waakaas biyaha iskaga badanin koos baradhada dhaqsee kartaa. intaas way ku filantahay inay isdhexyaacaan. waxaa ka qurux badan wax yaroo kaale arag ah. way soo kartay alaabteena. waakaas haddaa ku darsanaynaa barbarooniga iyo basasha. caraf kaala arag geesa iska dhigaynaa. markaas maxaa bilaabanaynaa ceeshkeena oo noo soo qamiire. ceeshkeena wuu soo qamiire. kamerada way iga dansaneyd sorry. xashitaana ku xidhay adigana haddana 5 daqiiqo meelahaas camal xashe. kuusaa soo goosanaya. kuustan mar walba waan isheega kuusta waxay la simantay birtaada. wax birtaada ka yar mise wax birtaada ka weyn ha soo goosanin. ceeshkan maxaa waaye culeysna yuu kaa noqonin, khafiif zaa'idna yuu kaa noqonin. dhexdhexaadka kaala arag siduu kusoo baxa waa arkaysin. macaan zaa'id leh ha u fidinin. birtana dabka sii saara ha kuu sii kulaato. saliidaadan waxaadan diyaarso. kaala arag gili ka bixi 5 daqiiqa ku dhamaysane. waa kaas hoosaasoo noogu soo kare. soo kor saliida ku shubane. hal qaado fuulna ma ahan. waa kaas markaaseed si fiican ilaa ay kaaga gaduudata. ceeshkana dab dheer ha ku karinin. dabku waa inuu noqdaa dhexdhexaad koos waxaan burwaa ma karsano. dabka hadaa iska dheeraysid 5 daqiiqa wixii way soo gaduudane. ceerinna waaye. soo dab gaaban zaa'id ayuu u gaabnaanin bad dhexdhexaad ku karsadee. kaala arag isku soo bedela. soo waa kaasaana kusoo wadayna ilaa ka dhameyno. fadlan ilaa inta hadda ila soo gaartay subscribe iyo like iyo share iyo saar asxaabtaadan la wadaag. thank you. inagu aan isa saxno khaladkana aan isu sheegno. aabayaashan aabaha hore waxaa la yidhahdaa abun muxtarimun laa mubaalaa. xawaankaas aan u bixiyey waa aabbo muxtarima. cid wax alla wuxuu dan ka leeyahayna aanay jirin. aabbahani waa laa mubaalaa yacniga wax alla wax reerka wax weyn wuxuu u doonaa masaariifta waa u soo shaqeeyaa. laakiin shaqo kale kuma laha. guriga meel buu ka galaa ka fadhiistaa, meel buu kaga cunteeyaa, meel wuu ka seexdaa, wuu ka baxaa. carruurta aabahood inuu yimi ma oga, inuu baxayna ma oga. reerkuna waa la mid. aabbahani cidna ma canaanto, cidna ma amaano, cidna ma dilo, cidna ma daayo. macnihiisu waxa weeyaan waa nin aan mas-uuliyadiba saarayn buu noqonayaa marka la soo ururiyo. aabbahani cid lama saaxiibo, carruurtiisa kalama saaxiib aha, cidna kama baqato. aabbahani waxa uu ka mid yahay dadka duyuufta ama martida guriga ku nool ayuu aabbahani ka mid yahay.
laakiin waxa weeyaan tarbiyadaasi tarbiyadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaynu mas-uuliyad ku qaadno ina faray ma aha ta ay shareecadu ogoshahayna ma aha dhaqanada dadka oo dhanna waxaad moodaa inuu dhinac marsan yahay oo waxa weeyaan wayna jiraan abayaal badan oo noocaasa oo ama dhibyari doonay sidaa inaanay dhibaataba ku dhicin ujeeddo ay ka leeyihiin adigu sheeg waxa weeyaan gurigu soo gelaya waxa weeyaan cuntadiisu cunaya qolka hurdadu tagaya uu seexanaya uu iska baxaya bas waxa weeyaan reerkaasi aabahaasi wuxuu ugu filan yahay waa inuu masaariifta ka soo shaqeeyo una keeno oo wixii uu heli karayo haddii uu masaariifta shaqayn waayana wuxuu noqonayaaba qof reerka dheeraadku ah buu iska noqonayaa dabeecaddaasi waxa weeyaan dabeecad shareecadeenu ammaantay ma aha waxaa la doonaya inuu aabaha saddexaad noqdo waa insha allah aynu xagga dambe ka sheegi doono akhdaada uu leeyahayna waxa weeyaan inaanu carruurtiisa iyo reerkiisa war u haynin nin baa ii warramaya wuxuu yidhi ama dee jamac baabuu noogu warramay aabbaha noocaasihi anigaaba arkay oo wuxuu yidhi gabadhiisii oo carruur leh ayuu ogaaday aniga intii ay carruurtaa dhalaysay mabuu ogeynba waana wax laga naxo inaanu xataa akhbaarta reerkiisa war u haynin meel la aanu ku maqnayna guriga uu joogo waanay dhacdaa aabbaha labaad waa aabbo aad moodo mujtamaca bariga dhexe oo dhan u badan soomaalidana u badan waa aabbahan kulul ee qayliya waxaa la yidhahdaa abun munfir waa aabe runtii dadka kala eriya oo qaylo badan dagaal badan waxa weeyaan waa mucaatib waa mid canaan badan waxbuu garaacaa waa nin daraab oo dilmo badan gabadha iyo carruurtaba hadduu ciyaarta isagoo carruurta leyna islaantu ka qabato xaajiyadu iyadana wuu ku daraya markuu guriga soo galo waa yakshaahum alcadaab oo reerkaa cadaabtii baa ku degtay guriga waxaa laga yaabaa in carruurtu ay sararaha hoostooda gasho islaantu waxaa laga yaabaa inay qolka soo xidhato ama ay kijada ku madadaalato oo kijada gasho si aanay ula kulmin cadhadiisa iyo qayladiisa ay markaa uga leexato waxaa laga yaabaa in guriga marka uu ka baxayo hadduu daaradda isagoo marayo runtii qisas badan baan arkay oo runtii laiga warramay markii aan arrintan in badan daraasaynayey carruurta qaar ba waxay dhahdeen marka aabbahayo daaradda marayo qolkaan hoosta ka soo xidhannaa markuuna dhaafana waanu baxnaa yacniga kama annahu wuxuu u arkaa raganimadu inay tahay inuu sida libaaxa keligii guriga dhex lugeeyo oo qolalku ay saylan noqdaan oo aan cidi hadlin intuu guriga joogo oo yacniga gurigaasi ciqaab baa saaran marka uu guriga ka baxo waxaad moodaa kama inay tahay rabbana kshif cana alcadaab inaa muuqinuun ilahu cadaabtii baad naga fiide yacniga in cadaabi gurigaa ka fiidintay aabbahaasi waxaa laga yaabaa inuu isu haysto inuu yahay aabba saxa oo tarbiyad wanaagsan reerkaa ku haya laakiin waa qabda cadaab weeye cadaab buu ku hayaa dhibaatooyin badan baa ka yimaada carruurtaas iyo reerkaas waxaa laga yaabaa gurigaa markuu ka tago in reerkaasi muusig garaacdo oo fiidyow daarto oo wuxuu doono sameeyo oo lanno ciqaabtii uu ku hayay buu ka qaaday dabeedna akhlaaq xumada oo dhan markuu guriga ka maqan yahay guriga ka socoto laakiin isagu isu leeyahay reerka adaa gacanta ku haya waxaa laga yaabaa carruurtaasi inay dee meelaha iminka tahriibaa bilaabantee inay aabbaha ka tagteen oo ka dhuumateen in ay meelo badan oo halisa u qabtaan waxaa laga yaabaa inantu inay hore u guursato oo ay degdeg u guursato si ay ciqaabta aabihii dilmada uga cararto dabeetana guurkaas uu noqdo reer baaba'ay oo dee waxaan laga tashanin laakiin ay dabada ka waday cadaabta ama ciqaabka odaygu ku hayo ama dilku inankuna saas leeg arrimahaas oo dhan inuu inanku guriga ka tago kadibna markuu shaqo meelaha ka raadsado waxba waayo hadhow meelaha ku qaylo oo inankaan akhlaaqdu ka lunto waxaa laga yaabaa inuu reerkii baabi'iyey oo isagu xumaantiisan iyo adeegiisan reerkii baabi'iyey laakiin isagu isu haysto raganimada ugu fiican inay tahay in wixii ka hor yimaada la dilo inanka ilmaha la caayo waxyaabaha khata ah waxaa ka mid ah inuu yidhaahdo dulli baa tahay qofaan waxba garanayn baa tahay damiin baa tahay allahuma salli calaa maxamedin wax alla wixii cay afkiisa ka yimaada inuu ku yidhaahdo bal inuu dee cay aabbaha iyo hooyadaaba uu dee caayo oo waxaan xunay ay markaa yidhahdaan soomaalidu inuu caayo ilmuhuna markaa isna wax caayo arrinkaasi markaa reerkaa odaygaasi muu badbaadinin ee u baabi'iyey laakiin waxaa laga yaaba in isu haysano ama odaygaasi isu haysto inuu saxan yahay oo reerkaa uu si wacan gacanta ugu hayo oo nin reerkiisa ka adag oo bila ka dhacday oo aan gabadhiisu meelaha marin oo inantiisu meelaha marin oo laakiin war uma hayo magaalada meel qurumad ka joogta inta kale joogaan waxaynu leenahay sidaasi tarbiyaddii saxda ahayd maaha in nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiguna carruurta ma dili jirin waanaynu sheegi doonaa aabbaha saddexaad baa waxa weeyaan aabbaha aynu doonayno in aynu wada noqonno insha allahu tacaala aabbahaasi waa aabbaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku dayanaya akhlaaqdiisii inta uu ka gaari karo
النبي عليه الصلاة والسلام لما سوى كوبي كرو وحويا إنك لعلى خلق عظيم بإله سبحانه وتعالى خلاق بإله سبحانه وتعالى وقمر خاتك عي لكن إنه كود دينا لين الدنيا أبها صدح هذا اللي دوني يرهروه إنه كبد بعدان وأب محبوب ضحوك وحويا مشهور وآباء شعل عروتي سو أي عروتنا شعشاي وآباء قصل بدن وآباء عروته أي كسر يعضو بل لقي آباء إسلام تلفتيدو إن عروته كلا صهر عرتبا ويضع عروته الله سعوته أو أي كم ذهون فرحة أو إذا يساركته لكن هو كم تهي وهنا كم ضنتي ولبا إن سيجارة ولبا الله احترامه والله قابله هو يضو بين مضنتهي وحبينا أبهاني وحلقة عروتي سمر كهرت بعدين دوشة كفر فوشو سيقولون كان